علمي الشرعي قيمي سواء كمدا ربعين عن تلمامه أنبياء إلهي عز وجل وحي لسيئة وقيمة بدنا علم ونقضي وحي لفرين إلهي ويديستان إنو أكرديان علم ونقضي وقل ربي زدني علما وحي الله كو كرامية دادكي الله صوت دري رمينتي سلقوا واجبين علم ونقضي رسول كان وحا كسوغان سيدا صحيحة كتالة بخاري من يريد سيدا صحيحين كتالة يريد من يريد الله به خير يفقهه في الدين نكي إلهي خير لدونا إلهي الدين تفهنسية وحا رسول كان كسوغان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والحديث الأول من حديث معاوية النبي يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة علمي وضل قجارو وذيق الله مره جنة تي ugu fadliga badnayd ugu xaq badnayd ugu sawaabka badnayd cilmi baa lagu gaaraa jannada cilmi waxa fadli ugu filan inuu nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam wa innal malaa'ikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yatlub wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i نبي يقول ملائكتي إلهي وحي قربه ذا أقوغليسا نكا طالب علمك الرادين يدحلك النبي كتغي عليه الصلاة والسلام كتاب كيس قرآن كها تفسير كيسي حديث كي النبي فقه كيسي قرآن كي فقه قودي وصائشي قارسين لهيد وكالله يلا ونا عرابية ملائكتي قربه ذا أقوغليسا كربيده وجوجلس التفاسير بدن با لا سارو دورا way ilaalinaysaa waa la yiri way u ducaynaysaa waa la yiri malaa'iktu waxa ay xaadiraysaa majaalista uu tagayo isagana way ilaalinaysaa waa la yiri intubana way iskeenayaan nabigu wuxuu yiri qofka طالب cilmiga iyo caalimka dadka cilmi baraya waxa u ducaynaya samaawaadka iyo dhulalka waxa saaran malaa'ikta iyo insiga iyo jinka iyo dhirta iyo dhagaxa ayaa u ducaynaya nabigu wuxuu alayhi salatu wasalaam bad iyo bariba wixii saaran baa u ducaynaya hatta kalluunka badda dhex wareegaya iyagu u ducaynaya nabigu alayhi salatu wasalaam arab madaxweyne inta soo ducaynaysa keena isu tago خلاص ما في نعم wadiga arkay madaxweynayaasha adduunka maalinta la dooranayna waa loo saxabinaya saddex cisho kadibna waa in kaar qabe صورنتي ما نبي نوح صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا علماء waxay dhaxleen anbiyada anbiyadana laga ma dhaxlin nabi dirham iyo diinar toona cilmi baa laga dhaxlay wa inma warathu ilma dadka waxay dhaxalsiiyeen cilmi faman akhadha bihadin wafir حديث كاس أبو داود يترمذي ابن ماجه أحمد ابن عبد البر الدارمي غيرهم ما يوري من طرق متعددة من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وصفوان بن عسال طرق بدن بلا يسحوتين إنسان بل طرق دي سكار كود ويأود بدنت حافظ ابن عبد البر وكيل هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأي مثله لا يقال بالرأي ترمذي وحليه حديث حسن صحيح وعن هذا الكاكس نقل الترمذي الإمام المنذر رحمه الله والله لا يعلم علمي قيمها له مركات قيمي سايا قايسا غرانيس علمي قيمها يا فضل عليه وعلم النبي محمد ليمي عليه الصلاه والسلام وكتابك القران كا يا تفسير كيسي يا قراءات كيسي يا وحي علمي كدخ دوغن iyo xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo quraanka wixii fiqi ku duugan iyo culumta wasaayisha iyaga u shaqeynaya physics iyo chemistry maaha juqraafina maaha warka waxa saa u sheegay culimo badan waxa kamid ah ibn Hibban saxiixa markuu xadiista qaar kood sheegay saxiix ibn Hibban ayuu wuxuu yiri cilmiga fadlaayishaasi ku soo aroorto dhan waa cilmiga nabi maxamed laga dhaxlay kaleey salaatu wasalaam حتى بعض أهل العلم وحيراده علومته الدنيا ده علومته وقلنا في عقب له طبقة
fadligaa ma laha haddaan niyad gaara loola imanin markaad cilmigaa qiimihiisa garanayso ee aad waxa aad raadinaysaa qiimuhu ku fadhiyo aad garanayso tahuunu calayka almataacibu way kuu fududaanaysaa wax kastoo adayga oo kaa hor yimaada haddii kale dee waxa ugu horeeya kaa hor yimaadaa ku sarfinaya wuxuu leeyahy ibnu jamaaca xasbuka bihadihi اdarajati majda wafakran وبهذه الرتبة شرفا وذكرا فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة مرق له عليه واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضح أجنحتها له انت هدان كتلمام علمي شرفتيس علمي سوح عليه waxaa masalada igu kalifay inaan tilmaamo sharafu lcilmi iyo fadligiisana kutub gaaray culimmadu ka alifeen waxaad akhridaa miftaaxu daari sacaada mujalladka hore waxyaab qabaad arki doontaa oo cilmiga fadligiisa ku saabsan waxaa hadalkaa igu kalifay dad badan oo maanta arrada aynu saaranay saaran waxa agtooda wax liita ka ah ama haddaan cibaarada fudaydiyo agtooda aan qiimo badan ku lahayn cilmigaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey in la barto waxaaba laga yaaba inuu is idhaha waxba ku heli maysid